السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل كستا جوجتان با ربي هايدن حفظو nabadgelyo caafimaadna haydin ku siiyo meel kasta joogtaan aad ku sugan tihiin intaan haysanna ilaahay ha siiyo tabaaraka wa tacaala halka kan waxaan rabaa cashar gooni ah oo degdeg oo muhiim ah inaan ku cadeeyo oo aan uga hadlo muuqaalka arrintan uga jawaabayo waxaan arkay muddo hore dadka qaar ii soo dirayaan qaar ayaga laftirkooda dhexdooda ay wataan Facebook haddii noqoto iyo meelaha Instagram-ka iyo xataa YouTube-ka oo ah muuqaal aan horay barnaamij uga hadlayay qadiyad gooniyo ku saabsan laga soo qaatay kadibna ay baraha bulshada si aad ugu faaftay ayaa dad badan si u qaateen qaarna dadkii ku kala duwanaadeen oo qaar si positive ay u qaateen qaarna negative ay noqdeen si marka dad qaarkana aysan u dambaabin xujada aan u oofiyo dad badan walaalahay iga codsadeen oo muuqaalkaas ujeedkan kala ahaa iyo wuxuu ahaa ma eray khalad iga soo baxa mise waa ujeed sax u ahaa ayaan rabaa inaan uga jawaabo insha Allah tacaala halkan sidaas iyadoo tahay oo muuqaalkaasi dadka walaalaha inna ka shakiyaba oo wax la dul saaray amay tahay iyo qaar ay dhaheen macquul miya qaar xumaan buu u fahmeen qaar ay wanaag ka tahayba ay u fahmeen inta markii laga yimaado waxaan rabaa inaan hadda muuqaalkaygan buddig uga dhigo saldhig uga dhigo mid kamid ah walaalaha YouTuber-ka ama YouTube-ka aadka dadka ugu shidan yahay sidaan horeyba u sheegay ayaa kamid ah dadkii arrintaasi ka falceliyo asaga laftirkiisa dhinaca negative-ka u qaatay marka aayar baan rabaa dadka inaan ugu dejiyo aan si fiican ugu saxo walaalkaasna waxaa la yiraahdaa horeyna muuqaal waa uga waramay CK marka CK wuxuu kaga waramay asaga laftirkiisa dhinaca negative-ka ama eray khaldan walow asagu soo sii fogaan laakiin uu yiri waa hadal khalad bimacnaa afka laga yaabo inuu uga dhacay carabka marka asaga reactionadiisa howlihiisa qosolka ayuu dhex gashay maadaama asagu yahay ninka falceliya waxyaalaha bulshadu ay soo bandhigaan khalad iyo sax ama asaga loogu dan lahaada ama mid hore ka horeysaba ha ahaataa ama mid caadiyo baraha bulshada si iskaga soo gashaba ha ahaatee hase ahaatee muuqaalkan wuxuu uga waramay inuu yahay khalad carabka laga yaabo inuu soo maray siday doonto noqotee wacdigaadi waa soo gaaray saaxiib wacdigaadi waa soo gaaray waan arkay fariinta ka samaysay muuqaalkaas ama ereygaas oo ah hooyada ii keen midka ku caan baxay wacdiga ka soo jeedisay fariintii iyo saxitaankii iyo waxyaalaha sheegtay waa soo gaaray laakiin in yar rabaa inaan idin sheego dhamaantiin anoo walaalka ka bilaabay wuxuu soo qaatay commentiyo dad hore dad bixiyeen meel kale ama Instagram meel kale uu ku arkay asagoo sidoo sheegay in kasoo fiicnay inuu daba galo muuqaalkan asalkiisa meeshu ka yimid laana uu garan kara inuu yahay meel wax laga soo gooyay commentadaas uu soo qaatay oo inta badan negative u badnaa su'ul fahmin aha dhimayo su'ul qasti buu fahm xumay ahayd ma ahan ujeedo xumo waxa la yiraahdaa wax jira ujeedo xun qofkan shayga uu og yahay inuu saxan yahay laakiin wuxuu u khaldayaa ujeedo xun way qaarna fahamka ka xumaada oo inuu khaldan yahay u fahmaan marka su'ul fahmi iyo su'ul qasdi wax la yiraahdaa kala jira marka intooda dhamaantood waxaan u qaadanayaa su'ul fahmi xumaan oo ma jeedaan laakiin fahamka ka khaldamay marka ana idin saxaya walaalkaas marka commentada uu soo qaatay iyo kuwa kale iyo asaga hadalkiisa iyo kuwa inkastoo dadka inta badan asaga commentiga videos marka soo geliyo comment ka bixin uu hamid positive oo wanaagsan hadda ana waxaan rabaa inaan ku sii akidoon rabaa inaan arintaas saxo walaala ayaga laftirkoodu aniga in hadalka aan saxanahay oo hadalkaygu saxan yahay muuqaalo soo duuba dad badan isku jiro qaar YouTube-ka caanka iyo kuwa kale way jiraan ayaga la soo diray ayagana uga mahad celinaya waa badan laakiin waxaan rabaa halka inaan saxo muuqaalka horta ereygaasi aan ku soo qaatay horta ereygaasi ana iskale oo ana iri muddo horeyna ahay sababtaan u iri iyo sida uu ku yimidna ana idin sheegay afka erey soo maro carabku xaday oo khaldamayna ma ahane erey aan ujeedaya kas u dhahay buu ahaa sida uu ku saxan yahay ana idin sheegay CK iyo asxaabtu uu ka soo arkay muuqaalkaas inta badan negative ka ahaa waxaan rabaa inaan dhaho wa kam min عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم محويا معنى هذا وحوي بدنا قف عيبين يا وحصحا لكن دباتها يستوى محي آفده وفهم بكوي marka iyaga fahamkoodu khaldamay ee eraygu saxanya
marka horta walaaluhu taa waa inay qaataan halkaana dadka iga xiran dad badan baa mutaabiciya ila socda barnaamijtayda marka inaan u cadeeyaan rabaa sayse qaarkood u dambaamin qaarkoodna loo dagino loo khaldin marka badanaa qof ceebeynaya wax saxan erey saxan sida kan oo kale laakiin dhibaatada haysata waxa weeye faham xuma haysata marka anaa idin fahansiinaya insha allahu tacaala horta ereygaas anaa iri ujeedaana u dhahay waqti marka wuxuu ahaa barnaamij aan kusoo qaatay 3 sano ka hor 17kii bilowgiisa miyuu ahaa mise 16kii aakhirkiisii adigu 3 sano ka hor buu ahaa barnaamij dheer baan ooga warramayo TV aan siinayo lay wareysanayo wariyo uu ag joogo wuxuuna ahaa barnaamijka ciwaankiisu shukaansiga casriga iyo ceebihiisa muxuu yahay macnihiisu barnaamijkaasi nus saac buuna kor u dhaafay 30 daqiiqo barnaamij kor u dhaafaa inta yarta laga soo qaatay sakinadaas muxuu iri wuxuu ahaa shukaansiga casriga dhalinyarada ka dhaxeeya iyo ceebihiisa iyo aafada haysata tusaalaana ku soo qaatay ereygan wuxuu ku yimid qiso aan ka waramay oo dhacday waxa TV-yada idaacadaha qaar la iska maqlo laga sii daayay 2012kii 13kii meelahaas insha Allah marka waxaan rabaa inaan dadka u sheego waxaan ka warramayn horta aqoon baan u lahaa qof fahansan baan ahaa nin marka iska hadlayay ma ahayn waxaan fahansanaa waa ereygan ka hadlayay iyo mowduuca aan u soo fariistay ee laga wareysanayay wuxuu ahaa wax aan aqoon iyo khibrad iyo waayo aragnimo u lahaa horta waxaan ka hadlayay waxaan garanayo ahaa ma ihi marka sida dadka qaar waxay ka hadlayaan aysan fahansaneenba sida walaalkan CK yani ereygan sababtaan u iri iyo sida u saxan yahay mar raadine oo soo qaatay يا إيوه كوشة كذا لكن أوكي هذا ما لا يوحير وحاربا إنا إدي شيء كلمة أن أرجع كسوقاتي وحوها قصة عن شيء أو ريوح ويدي دعدوين كبرشة عيبها الأرك محين نقول كرا دور قصة سوقات صدق عفر مياهي متكمل ياهي مركتان أرنتا كتبت وحين كتبت نص ماليات ودبت كيمين أيا وحو كجورسة جبر أفريقيا أو صوماليا قصة دعدوي gabadhii markuu guursaday wuu aroosay nin fiican buu ahaa markii horena Facebook ka bartay yaan buu la joogay dib uu noqday dalkiisii dibadda uu ka yimid gabadhii uur bay yeelatay gabar ay u dhashay uu soo beelanayay nin xaaskiisa u maqan buu ahaa waxa kala ma sha Allah laakiin musiiba qabsatay gabadhan horey bay shukaansimada u badin jirtay oo dhibaatada haysatay way ilaa haddana aan ku soo celcelinayo meelo badan baa fara ka yaalay waayaha ay dhalinyarada sameeynayso gabdhuhu markay qaan gaaraan inay ninka shukaysato oo kan shukaansato oo kan ay khiyaali la jiso waxay u haysataa qaan garnimada inay qayb ka mid tahay yeelbaxnimada laakiin hadhow marka ay sanado kadib ay ka qoomamaysaa ragaadiyo badan baa ku soo baxa marka gabadhan madha sawiradeeda intaas oo shukaansan jira hadda ka horahayay mid ay xabadka qaawisay mid ay horaadada u qaawi yihiin mid ay surweel qabto mid ay timo qabto fara laga wadahay ninkeedii marka dibadda jiray maalintii dambe asagoo Facebook iska dhex mushaaxay wuxuu arkay xaaskiisii oo Afrika uga soo tagay gabadha u dhashay oo isjeclaayeen oo ka soo tagay nin ay Facebookiisa u saaran tahayo ayadoo sureel qabto saasa saa u kala marorsan ya subhanallah waa maxay waxaan asaguna ma hubsan mana weydiin taariikhna ma raacin sababtana ma warsan sida dadkan oo kalena buu ahaa Soomaaliya degdeg way mugtay يهوبسين الآن بالقوي امتحان وحيرا ونبع دون كنا هوبسين الآن طوي هوبسين هالبالسيستا مركا ماشو سيكي ولا له كا هوبسن لهايين أيونين كان كلا لم يدها مو هوبسن ومحاول حاول عين مو صدقين انتو صاوعوا رصاصة سميسي ساسة هاي عيب وقشري وانا فرنتها صدح هذه وقبتها إيمان السوء عن كرتي إيمان التقانيد نمكات يعني هذا لو قبا كقرابنيسا سبحانك يا ربي ايضا waxay tir walaal usaas ma ahayn waagi dhalinyarnimada iyo waxaan ka qoomameynayo oo sawirada nimankaasi u saaran yihiin marka ay u garteen inaan guursado iyo xumayn u soo dhigayaan waxaas ma yeelay ugu faray miskiin bay ahayd aan waxba haysan isaga gacanta ku hayay biilka wax ka goostay maca gabadhiisa u dhashay qisa caadi aanay ahayd reerihi ayada ka soo jeeday iyo asaga odayaashiisa soo imaaday in la heshiisiyo damacsiga uu diiday talaahunkii dhanba uu bedeshayba qisada horta sidaasay ku timid dhibaatada haysata ayada iyo rafaadka haysta dartiis bay idaacadda inta u timid waraysiga u bixisa halkaas horta ka timid markaasaan waxaan iri gabdhow waa idiin tegaya haddaanan idiin sheegaya
sawirada qaawan iyo kuwa aan xushmada lahayn aan isturnayn ee aad dirisid markaad qaan gartid ee magaalada ku saastid waxaad ka ilaahay mustaqbalkaada ka go-ayeen haddada tan ka xisaabtan meesha taakada dhigaysidna iska ilaalin nin kastoo ku yiraahda sawir qaawan ii soo dirna blogga ugu qabo nimanku waa labo midi markay u soo dirto wuu naxariistaa wuxuu dhahaa gabadhan saasi ku aamintay xafid xitaa hadhow haddaad isku dhacdaan kala tagtaan iska dhali kare xitaa hadday xataa xumaan ku dhacaan labadooda wixii laga fiicnaa alla xumaa hadhow ninkan wuu qoomameeyaa gabadhana milicda ugama tagay wuu guursadaa kuwana sidaa cagsigooda weeyo mar hadday gabadhu sawir qaawan usoo dir wuxuu aaminaa inay sidaan u tahay qof walba iyo nin walba saas darteed anigu gabdhaha inta badan ma eedeeya nimankaan eedeeyaa maxaa yeelay ayagaa ku khasba intuu Facebook soo galo videoga furuux leh isku ka aadi timahaada itus wuu fiirinaya wuxuu mar hadday tustaan wuxuu aaminay inay tahay saqajaamad qof walba ay tusto qaar waxay leeyihiin xubinka taranka ay soo qaar waxay leeyihiin waa macruuf kuwan aroosyada ka boodboodaya qaawan inta dumarka dharka laga dhigay sida galbeedka iyo dad xornimada saa aaminay u labisteen saa wada ah wada qaawan arooska nikinaya ama xafladda nikinaya dumarka ninbaa ka mas'uula wallahi ninbaa ka mas'uula ceeshu midaha calolkiiskaaba ka mas'uula subxaanaka ya rabbi anigu yeedanay dumarku waxay moodeen ayagu inay nusqaan mar walba yihiin bay aaminsan yihiin falalka bulshada iyo ragga uga imaanaya iyo hubsiina la'aanta iyo dhibaatadan iyo bahdilkan lagu sameynayna u sababa marka waxay moodayaan bahdilkaas iyo nusqaantaas ay aaminsan yihiin inay ku sugan yihiin ayagoo ku sugnayn inay isqaawiso in ay isruuxdo inay sii jeedo inay soo jeedo inay horaadada inay sidaa isku kabaysay aaminsan tahay marka wuxuu leeyahay waa shidanta khatar maasha Allah khatar way wallahi ninkeela waana been meeshu uga baxaya khalaas ninka sidaa tahay kuga aqbali waayay si kale iska muujisid kuga aqbali mayo muuqaalkii horta sidaas uu ahaa marka dadkeena inta badan waa maxay fawaylun lil musallina bas bawta ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri yaa ayyuhalladina aamanu la taqrabu salah salaad ha u dhawaanina inta hadan qaata ka war oo dhaho ilaahay baba salaada la dagaalamay maya ilaahay wuxuu yiri waa ku darayo wa antum sukara adinkoo sarxaansan fawaylun lil musallina kuwa tukada la cadaabaya oo salaada iska ka xaramiya maya aayadaha dambe akhri fi suurati al-maa'ida alladina hum fi salatihim sahun wasalaad xun way waxa laga waramay kuwana waa sidoo kale sanado hore barnaamij kelmad ku dhex jirtay oo barnaamij weyna xagga ka sareen wixii fasir ilaahay ka jireen way soo qaateen iskaga baashaala ciyaal TikTok iyo kuwa kale iyo Instagram iskaga baashaala iskaga qaraxay laakiin ha u moodin nin soo furiistay weynay difaacaya midna uu xumaynayo sikay iyo dadka kale sida u fahmay qaateen soo dumarkii difaacayay dhaheen ayuu wuxuu ku dhacay khaladkii oo ah inuu dumarka caayimaya jeedku marka waa maxay hooyada ii soo dirdhe jeedku waa jeed saxan cidi caafimaad qabto waa fahmaysa oo jeedka saxan wuxuu ku yahay hooyada ii soo dir hooyada iyo gabadha aad sida ku dhahaysid waa sidaas waa sameyn waxa kuma kala duwana ayaduna waa hooyo wiiliyo hadaad hooyada sida la jeceshahay hadaa ku dirto dhimana wasaada la jecesha hadaan ku su'aala gabar sawir qaawan weydiisato walow timaheeda waxa ahaadeen aan ku weydiiyo hooyada sida inay u dirto ajnabiga ma jecesha ma adiga inay ku soo dirto xataa iyadoo saa u qaawan oo awrada qaawanta ma jecesha xataa hooyada ma hadda tan waa hooyo muqaarana la yiraahdaa marka isbarbar dhig soo ninka u hakado nabi maxamed ninka u yimid wiilka dhalinyarada ee yiri nabi ilaahay waxaad ii fasaxdaa zinada iska baashaale iska kay fasaxsan garaad baa waxa guursada maaye nabigu ma caraanan mana cayrin mana habaarin sida bulshadeena oo kala mu ahayn sallallahu alayhi wasallam inta uu yiri kaalay si aqliin u fahansiyo waana sida hadaan waa sheegay hooyada ma la jeceshahay sidaan lagu sameey walaashana maya eedadana maya habaryartana maya hadda dadkuna sidoo kale gabdhahooda lama jecla saad gabadha walaashaya inuu nin xumeeyo aad u nacay sidaada u rabin adigana gabadha islaamiyada xumeyn ujeedku waa saad hooyada in xumeeyo aad u jeclay low aabaha aad qofka xumeyn kare adigana ha xumeyn was barbardhig marka muqaarana la yiraahdaa marka si kay marka asaga iska qaraxaysanayay waa ogahay fikradda ujeedku kala ahaa asa ahaatee hadduu wax badan sii raadin lahaa muuqaalku raadin lahaa dhammaystiran sida saxda ah uu soo qaadan lahaa khaladna ma ahayn afkuna wuxuu xaday ma ahayn wax sax u ahaa sidaasaana la isu barbar dhigay laakiin bulshadeena waxba hubsan kow
midda kalena haddana ma tixgeliyaan rubama laga yaabaa ereygan inuu saxnaan karo ma dhahaan anigu inta badan xitaa qofka isoo cayaan sanadaha inta badan ugu fasiraa inuu ammaanayo saas la ajilgeeda samayntu muuqaalkayga barnaamij ka sameeyay CK kama xumaan wacadki leh waaba ku qoslay oo waama dhageystayba maxaa yeelay aniga inta badan oo ma badnin xagga negative-ka ee xagga positive-ka u badana xitaa qofku waa la sixi karaa oo waa sax meeshan cid nabi ah ma joogto qof walba waa khaldamaya nooc kasto iyo darajo laakiin anagu waxaan u baranay wadaad meel ku qabaysan dadka halka ka maro ka takooran buul ku jiro halka loogu imaado hadii la raadina la waayo in yaro asaga isku koox yihiin iyo inay wax u sheego bas isaga fadhiyaan bulshada dhan uu ka go'an yahay magaalada iyo dadka iyo xaaladooda dhexgalo la socon waxaas la yaqaan marka hadii la arko nin diintiina wax sheegaya adduunyadii iyo bulshadii iyo horumarinta dadka naftooda iyo wax xiriirkooda sheegaya haddana diintii iyo aakhiradii hawliga ku saabsanaa iyo xaggaas is ilaalinta iyo in cadaabka laga fogaado jannada la shaqeysto oo haddana dadka ku dhex jiro dhalinyarada ku dhex jiro oo aaladaha isticmaalka arka way la yaabaan masuuq waa sheekh masana marka caadooyin hore oo khaldana ayay soo عاديسين جرين وكسر رقميا ما خلاف سوي خلاف مرك واحد خلطان بوكان ساس الأجل جد بي أنت كومنت جوا بحسي سيجي وسوقاتي إنستغرام ميلاه وكأركي وكسوقاتي أي نوع عسيهين مركا ونوع تدارية لكن أيوه هذي سنين يعود دارن ونوع تدار أرجونا وأري صح أنت نبدأ نساس فهمتين كومنتين أركي زيكي ما شاء الله لو بحني إنه أري صحيح ما شاء الله قارهم طبعا اسكف فكرة قالوا عايز كيف هنسوي جرام قارو حلي الشيخ صومالي ساس مياه horta عبد الله baa la yiraahdaa sheekh magacaygu ma ahan hooyadayna ina ma bixin hataa ugu disaaris aday ku taala aan waxaan ka warramayaa dhalinyaro iyo sida ay dumarku xumeeyaan iyo sida waxyaalaha khaldan u jiraan iyo sida dadku ay isku dhex yaalaan iyo sida xishoodku u yaraaday waxaasan ka warramayay iyo toosnaanta ila diintaadu ma aha nolosha ka durugo ka carar ee waxa weeye nolosha dhexgal oo ku baashaal oo ku raaxiso laakiin xaraamta iska ilaali sidaas uu jeedkaan uu ka leeyahay marka erigu waa saxan yahay كدالنا هاي سكون مشغولين إسكذا قراح يستمالين توقع مالها كلا سيدا برامج كلا هراء وقراح يستمال يوح كلا أنا واسكا أو كلا دارين يوصل هذا إسكا فرحيهم والله إنتان أركي أمة فرحسن نرورة صوصعت إنتان أركي أمة قسلي صوف فرحسن وحي أجابا وقاربها وقارب نقضي نبا هذا كور بقرة كلي تريسا وحي يري ضد كستو وجه عبوسن أو حناقسن أو فرحسنين وإن قرر لك ترى اللي تله marka asaali sabab wuxuu yiri jannadaan u diraya say halka ugu qoslaan ugu farxaan isoo waligood u murugoon subhanaka ya rabbi arinta marka aan barnaamijka galay 3 sano ka hor waxay ahayd xaalad aan u dhaxeeyay mukhatar wax la yiraahdo laba nololood mukhatar wax la yiraahdo qof nolol hore soo arkay nolol dambe ku jira asal kelmadda waxa loo isticmaali jiray qofka xilliga nabiga soo gaaro oo rumeeyo nabiga arkin sida najaashiga boqorka xabasha mukhatar baliila xilliga nabiga uu soo gaaray ka horna wuu noolaa macdaalika nabiga muusa arkin wuu rumeeyay hadana ninka arkada saxaabi noqda darajo kale u qaata laakiin ninkaas kale mukhatar buu noqdaa marka anu nolol noocaas ah macnaha waa maxay fikrad waxaan ka soo guurayay labba wax lab يعني نبا wax un naagi waa masiibo naagi waa cadaab naagi hadaadan cadaadin waa dhibaato fikir يعني لبنما ayaan yani ku soo noolaa marka kaasa in yar ka soo baxayo saxay marka waxaan galayay dhinaca in ay dumarku yani wanaag hayaan dhibaataysan yihiin oo la dhibayo fikrad kasto lagu dhabiyo xataa iyadoo diinta loo isticmaalayo la qalloocinayo marka waxaan joogay laba nololood dhexdood xuduud baan mariyay marka ساسان أسوس سعودة مركا إن دتكو أي نقدان نلوشوا ذنا فرطان هدنا أي نقدان قوة حقوق ذا الدفاع ده مركا لبضع نلول بين سومري حالنا عسان كسرنا هرت حالات ده وحنا كل فهمت على لب ينن وكل دوين لب كوحوي وحي نن كل اللي تروح وكوي له المدلك كذا رجعنا واد درجة ينن ضدني ماذا يجسني ماذا يدرسني ماذا يعقلك يعلمك يحترامك يأقود رج واساس مركا رج يلب وكل دوين لدك يلب بعد ما قشن صوما هويني ينن erayada macaanidan iyo waxyaalaha waxay ku taagan yihiin adigu haweenayso ku ahaan ninayso nin ku ahaan waxa waa kala duwan kala darajo sareeyaan marka ina kan nin ahaan tahay ina haweenay uga darajo sareysid oo inaad kaga tumtid xuquuqdeedii waad u sababtay intaas xanuun oo masaa'ib oo murugayo walaal ku nooshay inta xumaatayna saad u xumeynaysan ay saan noqdeen filcilintooda ay xumaanta noqotay meel ka qaawintahay hadda rag baa ka masuula noloshaas aan marka dhahay islaamuhu ayaga waxa u sababa in mar walba dhinaca xumaanta dumarka loo biyo awood la saaro nolol noocaas aan yara ka soo baxay oo fikradaha iyo baaritaanka iyo
isfurfurkaasaan ku jiray marka xoogaa marka halkaanaan kusoo yani xeebta aan soo aaday oo ah xeebta xuquuqda in la ilaaliyo dadku inay walaalayiin dadku inay sameeyaan wada noolaadaan xitaa fikirkiisa isku khilaafsan inay wada noolaan karaan ayagoo kala jinsi inay kala wada noolaan karaan ayagoo kala midaba inay wada noolaan karaan qof walba noloshiisa u fahmo u daayay dadka ha ku mashquulin xanta iska daay xaqdiga iska daay yani nolol noocaas xeebteedan soo gaaray oo aan dhadhansanay oo macaansanay ilaahay hadda aan ku suganay ilaahay hadda aan raadinay ilaahay hadda aan ku socdaa oo aan u noolahay waxa aan dadka in badan ku kasbay dadka يعني عشرة ضنيا أما أن وقف إيدي أنا نوتش على هذين أوسوك بواسطة سيجي لكن وحنا ودري فرين هراء وكه الرئيسي طبعا هو أركي لأن مقال كلفت رجوع كله واقعتي نستحدي صح إلهي كابل المري وقف ولي النرورة قدام بيس مركز لأن محايا لي أنا فرين تأندري يبا وحا أن أدري وحوي إن صغي ولالك كلا أن كرجين إن قادم طونان لأن هدانا كرجين إن قف كسكما ده أدق ما أهين سو قفل بسوق إنه ليش يسا هيستحضر اللي إنه دين تيسا كوكيل هذا ضدك وشيء قفل با سياسة دوية دكتورة دوية هوينية دوية غيرها دوية فنانة دوية وحول با إلى هاي الدم بقى سيجوني أسمي ساسجا وطلع لكن وأنا وكيل كالنقطة وحول با وأنا قد حياة لكن الدين يوح أي نقطة با مركز ساهر تكو أجاد هويا الله معاين هويا هالكي نو صارنت هويا أنا وما أقعنا تاني ده شيء بس يندك أجلو هويا waxaan qaana haweeney kasta iyo dhidig walba walaw caawada tan iyo saacadan ba hadashay laana way noqon doontaa naxariistii hooyada baa ku jirta dareenkeedii baa ku jira marka hooyo macaayeyne hooyada soo nalama weynaha oo sida darteed soo muuqaalkan dad badan uga madidin adigna soo khalad kama ha hooyada say kuula weyntahay inaad u weynaysid weeye dhidiga kale ya haweeneyda kale saasina weynaysid weeye ana jeedkaygu waa saas hadaa iyada xumaan la jeceshahay kuwa kale xumaan bad la jeclaanaysaa ayada ninka caasiga ku ama ixtiraamin baad dumarka iskaga tunto oo wuxuu rabo ka sheego wuxuu rabana ka faafiyo wa hatta haday mutaysta oo aan tixin kale subhanaka ya rabbi marka inay dumarku ayagu is haystaan oo is ceebeeyaan rag iyaga is haystaan xumaanta iyo dulmiga lagu jiro waxa soo dhammaan ka soo horjeeda in saxada naxariista iyo safinta iyo waajibaadkii xuquuqda in la ilaaliyo adduunyada loo shaqaysto waxaan dadka ugu yareeyo waa taas mar walbana u jooga halka kan uu joogi doono leeyahay anigu waxaan u jooga waxa weeye halka kan YouTube-ka iyo barahan kale aan isticmaalo waa sixid iyo horumarin labadaas aan taagan sixid si wanaagsan lagu xusaxo ud'u ila sabiili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana iyo talasin oo ah horumarinta qofka bini'aadanka haweeneydu inay isfahamto waxa ay tahay wax badan hadii haweenka dhan ee Soomaaliya barnaamijta dhageystaan way iska saxiilahaayeen waxay ku jiraan inay nusqaantooda oo ayaga hoos u dhigaysay fahmi lahaayeen waxaan badanay suuqa aan arkayno iyo baraha bulshada waxay fahmi lahayd inay dad tahay dadnimadeedana u shaqaysato ayna aaminto in Ilaahay si gooniya ayada mas'uuliyadda iyo naftii loo diray iyo xuquuqda loo diray loo weydiin doono oo san mar walba wakiil ka hayn saas ogaan doonta ninkuna si kasto xuquuqda ugu tumato inay sayiduna dhinaca negative ka u biirin laana waxaynu aragnay haween badan oo ragga haysta ama caayaya ama dumarka xuquuqdooda ka sheekeynaya hase ahaatee ayaga naftiidii xuquuqda ku lahayd iyo tii alla kula hadayay oo iska wada qaawan oo baaba oo afka waxay ka sheegayaan wax Ilaahay xarimay uu yahay nooc kasto yahayba maxaa taas sababay nin cadaadiskiisba u sababay marka nin cadaadiskiisba waxaad ugu dhacaysaa wax alla ku diiday taas laftirkeeda nusqaan weeye iyo dadnimo xumo nin hadduu ku xumeeyo boqolaal ku xumeeyeen bulshadu ku xumeysay إلهي نسكت شيء لنا كلام حكوا قبضتنا استفادة ضدك كلا إيه ظلمياشان حقه وراديس هذا الطبع ما أنا جينا نأمنه هوين مك حق الله بتوبله كامل إنه ده هوين ده وهيل بنايا وعصر هو شيء كوين كا كورني وشرع عقل وافق سنين شيء كوين هوين وهيل بنايا دوا جالس كحنا تحسن نيرحون كقادني ومركي عاود ده مركي هالكامرتو مركي استفرتو بلا قصة صعدة بلا يسمي حمام بيسمي حمرك بريشك وصارنا وحاصل إنتان دبعنه شرف أمبرنا يا قون سيد سد فعله لأن أنت بدن كرسون حنا دبر راح كوري داي قري قال لقصوا بلا سكول كمدرس مال والبا إن أي تحيب هرب بناي الله هطيب كل جد مال أضحضه إن كضضفي آمنية أيضا المركوي آمنتي خلاص واسدكت لكن هذا الشخصية يبدأ لماذا بري لحياة مال كستوي تكتب بقول كستور شوغان وحيا هاي من إسرائيل النساء واستفاعي سنقول نبي قبضي زينب هاي مركي صوم مسلمتون النبي محمد رضي عليه الصلاة والسلام نكادي وحكور هراي الشركي قال لي ماذا مركي واحد تلو آدية مركي سوي آد لكن يسكو دوان
موسى دين من كاسو دويسه انا باتايو هل بنان يلا تايو من هذا نينكو تغتي هوري وسوق بيجنتا ويس تقانين دو كل لاعيا ما دهين لكن وحي يري meeshaadi caruurtaada ku noqo laakiin isugu soo dhawaan ilaa uu muslimay subhanaka ya rabbi day wuu aaminay dadnimadeedu aaminay laan asaga soo dhisay guriga cilmiga iyo aqoontii geesinimada ku soo kortay laakiin hadda daciifnimo ku soo kordhis naag baa tahay oo wax ma tihid dad ma tihid daciif baa tahay meeshaad martid waa lagu jalaafayna isnaan saan baa tahay martid intay aamintay saa noqonaysa قاصح مقلسة بري قبضي ولا لا فكري قبضي نبى بينو شاكي قبضي ميت بأوري قبضي سام وحين قلت مركب واحد سكت يعني لأن أنا خصوصا بيرني مركب هو ربع أساس كان نجا خلطان مركب هايو هي قبضي شو كان سنسي ميت قبضي واسكو ميت اسكو دريتوي وهاوين وبغرتوي ريال بأوبانتا هذا الونكسن يدبع سنة حتى أديك يكو وقت كاتو قلص هذا كيري سيد شلا اسكو سو قشان عضيت كوكلا بحداد اسقبتين عداد ربين تسكفر خلاص حقيقة نسي لكن انت قبتي هدانا كدكت من ميل كحران لما قبل لما فرين مدانا شو كان ستة خيانو مركان هدي alla kuran yahay tiraahdi sawirkan uu soo dir ama aad ka furatid waxa qaaliga ay agteeda haysatayba dad beenbeen ugu sheegtay isgursan doonaa waxa awal baa naga islaan hayna beenbeen u sheegtay berina ka caragtay marka uur ku soo ka dhiman ayada la eedayo ceebta ayada la saar مشكلة بالشدة هاي سرتوي عقلي أنا حرتي مسكح أنا قلفتي قلبي أنا دقح كده بتكنا اسكت درتي أبارتك كنتي علاتك كنتي رفاتك كنتي فهم حمدك كنتي عدد كان كسوقين حتى مقالك كأنا فهم حماك قادين خلد أمينين بأنا إنه جاينا هو يعي أمينين بحاشا ده أنا واحد نقول حرام بقلبي جينا قلتشي أو مركز تدي على كورن يا حمي مركز برامج كان سود يارين أنت هذا الجنين وحيا هاي إن أنت هذا ويسيسي تلا برا عتو كتير هذا يا ربي سيد صح النوافذ هاي إن كستون سكقرا حيسنا ربي وإنه يقتحي لكن سيد صح نوافتي ربي وأتراد اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سيدا سأل ربنا أتراد مركز واحد بدن بفهم لهاي waxaa kugu soo degi lahaa nafta ruuxdeeda iyo nolosheeda qalbiga waad fahmi lahayd dadkaana community soo bixilay runta u sheegi lahayd waa sixi lahayd xitaa inaad dib waxa ka ogaato waxaan ka dareemayaa community-ga adigu laftigaada qorto tiri qof walba uu khaldamaayo iska aayiraya marka qof walba waa khaldama meesha nabi ma joogo laakiin khaladka marka qaarkood waxa laga dhigaa wax saxan oo sida eraygan kala oo ah hooyo iyo xaaskada isbarbar dhigay hooyo imida isticmaashin baa isbarbar dhigay hooyo imida iskansataan baa isbarbar dhigay hooyo imida isku doonantiin baa isbarbar dhigay hooyo imida khiyaanta isbarbar dhigay hooyo iyo mida ka dalbatay sawirka xun baa isbarbar dhigay adiga kala dooro marka tan waxa la jeceshahay waa inaad tan la jeclaataa خلاص fikraddu marka inay soo gaartay oo fahamteen waa filaya mar haddaad fahamteen iska qaracayta iska wadota ujeedku waxa weeye in ayna dambi qof ka gelin qofku doonaba ha noqdee aniguna qof khalad ka gelin khaladna la fahmo jidku asaas anigu ma ihi qofka erayada antaan ka fiirsan hadhow marka la qabsado ama erayga lagu qabsado yiraahdo wallahi waa ka xumaa waa khaldana marka asaas uma jeedinsa ma yani inta badan bashar waa iska hadalka carwa iska xadi karaa waxa aan marka aan barnaamij u soo fariisto oo aan ka hadlayo waa wax aan waqti ku bixiyay erayga ka soo baxay aan ka fakarayo ogahayna ujeedkiisa iyo maqsadkiisa taasna waa la socotay marka caaqilka yani waxba looma fasira iska garanay laakiin xoogaa dadka si kale wax u qaataan si fasirayna hadii qofka inta kadib qof yani si niyad xun iyo si xun u sii fahansan adaa saga u taala waxa la yiraahdaa falaysa yasihu fil adhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalil jeedku waa maxay wax la aaminayo iyo wax jiraya ma jiraan hadii cadayn loo raadiyo qoraxda duhurka halkaas loo jeedo haduu qofku yiraahdo qoraxda inay jirto yaa isugu kara هذا إسكت دبورك سما إلى ما رئيسدي ويا مرك إلى ما رئيسدان كوضع بحضنا ومضل بحقوق دي ساعين نسينه وحاليا وكم مرشد ضل قف يعني وحرادين يي أو حتى وناك رادين يو ضمي بدنا سبحانك يا رب مركز دمانتين وإنس صحينا دمانتين وحنو تاجنا إن أينو برشدا قفل بقيبتو كياي قفكي قصل يقفكي خير يقفكي وناك يقفكي أرمى أدو يقفكي وحكلو تلاو هاي إنه سوكت بيجت قصاص هذه أنا سيكيساس إن فهمت وافريها فرنتين أنا كسر قاري دون تنوافرية
tii horaan kusoo diray yani sirta ku jirtay naseexadii horena waa inaad fahamto si fiican u dhegaysataayo aad qaadataa biidn illah. ujeedkaygu maaha inaad kasoo hadashay, ujeedkaygu waxa wey inay ku gaarto fariintii aad heshid insha allah. kan dhexdiisa waxaad ku sheegtay inaad qaadatay maasha allah, oo ah dadka xumaanta samaynaya wax sharci iyo caqli iyo dhaqan u diiday adiga dartaas adiga reaasho ugu soo bixiso dadka u bartaan. dadka noocaasan yani isku dagin oo adiga laftirka dhug yeelo oo soo jeed, iyo dadka kale arrimahaasi ayaga laftirkoodaba sameeya. waxaan sii dhahayaa nasteexadii hore waad aragtay kama soo falcelin, laakiin fursad baad gaaday, ereygaana meelaha la wareejinaya aragtay, halkaasaa kusoo gashatay. marka gadaalna waxaa ka tiri nasteexadaadii waan qaatay. marka taa hore haddaa ka hadli lahayd waxay noqon lahayd inaad caadi u hadashid oo qosol qoskii waxaasa kugu yaraan lahaa. laakiin qof inuu iska qoslo way fiican tahay, saade qosolka badan ma fiicna, maxaa yeelay qalbi adeyg baa laga qaadaa qosolka markuu tira bato. wax walba oo xadkiisa la dhaafinaya dadkiisa wax kasoo horjeeda ayuuna isu bedelaa. marka taasna waan u gartay barnaamij laftirkiisa. hase ahaatee qof walba niyadiisa ilaahay baa og, niyooyinka iyo quluubta ilaahay hanoo islaaxiyo. meel kasta ku sugantihiin rabbiga haydan xafido. baaraka allahu fiikum.